بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal ku soo dhawaado qisadani waxay ku saabsan tahay gabar inan ah oo 20 jir ah oo aad u qurxoon alana ka cabsata qolo fara badan haysata gabadhan ayaa waxa jeclaaday nin taajir ah oo aan diinta islaamka ku fiicnayn ninkii ayaa u diray erge gabadhii kadibna ergadii ayaa gabadhii u tageen oo ay ku dhaheen waxa ku soo doontay nin oo aan erge ka nahay gabadhii ayaa tiri ma xumo ee ninka iga warama qaabkiisa ergadii ayaa ku tiri ninku waa nin taajir ah caan ah oo qabiil sare ka dhashay asa ahaatee diinta islaamku kuma fiicno oo aqoon saas ah uma lahan gabadhii ayaa ku jawaabtay haddii uu yahay sida aad ii sheegteen wax dan iyo heelo kama lihi anigu waxa aan jeclahay inaan guursado nin gacanta iga qabta ina wada jannada oo micnaha waxay ula jeedaa nin diinta islaamka aqoon fiican u leh ala kacabsigiisuna uu yahay mid aad u weyn dadkii waa ay soo laabteen oo waxa ay ku soo laabteen ninkii waxayna u sheegay in gabadhu soo diiday sababta ay u diidana ay tahay in diinta islaamka uusan ku fiicnayn sidaas daraadeedna aysan rabin ninkii ayaa markii uu maqlay jawaabtii gabadha ka timid aad u carooday oo wuxuu balan ku qaaday in gabadha ay hoos imaan doonto asaga ayada oo ay dulaysan kadib ninkii ayaa baxay waxa uu aaday saaxir kamid ah saaxiriinta arintiisii ayuuna u sheegay ninkii saaxirka ayaa yiri oo ku qabanaynaa hawshaada laakiin waxa laga rabaa xoolo fara badan ninkii ayaa ku jawaabay wax alaala waxaad u baahan tahay waa diyaar laakiin hawsha aan rabo waa in la ii qabtaa saaxirkii waxa uu yiri waa ku qabanayaa waxaad ii soo laabataa berito ninkii markii uu subaxii ku laabtay saaxirkii ayaa saaxirkii waxa uu dhahay niyo arintii aad ii dirtay shalay oo ahayd in aan gabadhaasi ku soo jiido oo aan ku soo jeediyo waan awoodi waayay laakiin waxa kugu nasteexaynaya waxa jiro saaxir kale oo iga cilmi badan arintan waxa uu ku nool yahay xaafad meesha ugu dambaysa ninkii ayaa baxay waxa uu u tagay saaxirkii loo tilmaamay waxa uu u sheegay arintii ahayd in gabadha loo soo jeediyo oo lugihiisa la hoos keeno wax alaale wixii uu rabana uu siinayo saaxirka intaa kadib saaxirkii ayaa ku dhahay waxa ii timaada berito oo hawshaad waan galayaa ninkii ayaa maalintii labaad soo laabtay oo uu imaaday saaxirkii weynaa hase ahaatee saaxirkii weynaa ayaa arintii gacanta ka taagay oo ku dhahay sidii saaxirkii hore oo kale arintan waxba kama qaban karo oo arintan waa arin aad u culus oo wax walba aan sameeyay waa keeni waayay in gabadha ku soo jeediyo oo xitaa waxaan adeegsaday shayaadiinta kuwa ugu adag oo ugu khatarsan alxaban waa ay ka tari waayeen sababtu waxa ay tahay gabadha inta ay jeefan waxa ay akhrisataa suuratul baqara oo dhameystiran sida daraadeed wax waan ka qaban weynay ninkii ayaa aad u murugooday oo waxa uu dareemay in uu ku dhacay dambi aad u weyn oo waxa uu kaashaday saaxiriin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay ninkii saaxir u taga oo rumeeya wax alaale wuxuu u sheego qofkaasi waxa uu ku gaaloobay wax alaale wixii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejiyay intaasi kadib ninkii saaxirkii weynaa ayuu ka soo tagay asaga oo oynaya Allah subhanahu wa ta'ala ayuu u soo laabtay oo u toobad keenay oo Allah waxa uu ka bariyay in uu ka cafiyo dambigaas weyn oo uu ku dhacay qisadani dad badan ayay cibri qaadasho u tahay ee fadlan sii share garay